waxaana wanaagsan dilaantiin meel walba dunida daafeed aad ka joogtaan daawadayaal waxaad naga daawanaysaan barteen YouTube-ka runta wararka hayloowin daawadayna subscribe dhaado channelka si ay kugu soo dhacaan xogaa ugu horeeyaan barteen soo gelino muuqaalkana la garay haddii tahay taageero cayuun qurux isla markaana agtaada qiimo iyo qadarin ay ka mudan yihiin hablaha Soomaaliyeed marna hooyooyinkeena marna walaalaheena marna aan guursan doono noo dhali doono fadlan la garay muuqaalkan si aan u aragno taageerayaasha ay leeyihiin hablaha Soomaaliyeed gaar ahaan walaasheen baraha bulshada ku dhibaataysan cayuun qurux isla markaana beenta iyo been abuurka laga faafinayo fadlan la garay muuqaalkan si aan u aragno taageeraha ay leedahay cayuun qurux iyo taageerayaasha ay leeyihiin hablaheena Soomaaliyeed meesha ay gaarsiisan yihiin run ahaantii falcelinta ay baraha bulshada kala kulantay muuqaalada xumaanta ay laga faafiyay walaasheen cayuun qurux ayaa aad u sareeya maadaama la arkayo muuqaalada la soo galiyay ee laga diyaariyay walaasheen inay aad looga falceliyay fanaaniin aad far badan ayaa baraha bulshada gaar ahaan Instagram-ka ka hadlay waxaana kamid ah fanaaniinta ka hadlay cayuun qurux fanaanka dalmareer ayaa bartiisa ku soo qoray Instagram-ka qoraal u dhignaa sida tan waxa uu ku soo qoray runtii doqomo aan qiimaha hablaheena aqoon baa sharaftaada meel uga dhacay I am sorry ayuu ku soo qoray bartiisa Instagram-ka fanaanka dalmareer oo ku sugan wadanka Mareykanka waxa kamid ah fanaaniinta sida uu hiiliyay geeyada Muqdisho ee cayuun qurux fanaanada Shaadi Sharaf oo ku sugan magaalada Muqdisho waxay soo qortay cayuun qurux kuwiin aanu istaagno rag damiir malahan ay ku soo qortay ayadana barteeda Instagram-ka waxaan aad uga faraxsanahay inay meeshan igula jiraan dad positive ah oo love saara sawirka cayuun qurux ay ku soo qortay barteeda waxa kamid ah fanaaniinta ka hadlay fanaanka Qamar Suugaani oo ku soo qoray bartiisa Instagram-ka goobtu leecista mooyee jabkay kula rooraan ilaahay dumarkeena hayno dhowro ayuu ku soo qoray bartiisa Instagram-ka dad badan oo caan ka